muuqaal cusub. Waa Pilot Shooter. maanta waxa ayaan ka hadli doonaa Somali Airlines ama astaan wadda qaranka calanka Soomaaliyeed sida American Airlines, Turkish Airlines, Qatar Airways iyo Kenya Airways ayay u dhigmataa Somali Airlines. Somali Airlines waxa ayaa la abaabulay sanadkii 1964 bisha March 5 waxa ay duulimaadka bilowday isla sanadkii bisha July. waxa ay noqotay shirkadii ugu horeysay ee Soomaaliya leedahay oo duulimaadyo bixiso dalka iyo dibadda. xarunteeda waxay ku taashay Muqdisho. Somali Airlines waxa ay lahayd diyaarado badan oo kala noocyo duwan sida Viscount, DC-3, Fokker 27, Boeing 727, Boeing 720, Boeing 707 iyo Airbus 310. dhacdo waxa ayaa dhacay sanadkii 1984 November 24 waxa ayaa la afduubtay diyaarad ay leedahay Somali Airlines oo nooceedu ahay Boeing 777 flight number 415 oo ka kacday Muqdisho u socotay Jeddah, Saudi Arabia. markii 30 daqiiqo hawada ku jirtay ayaa 3 nin afduubtay diyaaraddaasi. waxa ay ku dhaheen duuliyaha inuu ka dejiyo cadan oo loo diiday inay ka caga dhigato ama ay ku degto magaalada Cadan. waxa ay markaasi afduubayaashii diyaaradda geeyeen magaalada Addis Ababa oo Ethiopia caasimadeeda ahayd. waxa ayay dalbadeen dad maxaabiis in oo dowladda Soomaaliya fasaxdo ama xiriga ama toogashada lagu xukumay laga cafiyo. 75 saacadood wada hadal kadib ayay dowladdu ogolaatay arintaasi. waxa ayayna badbaadisay shacabkii iyo dadkii saarnay diyaaraddaas rukaabtii oo dhan. Somali Airlines waxa ayay shaqadu ka fadhiisatay sanadkii 1991 markii Soomaaliya dagaalaha ka dhex dilaaceen. hadda waxa ayaan leenahay rajo aad u weyn in ay Somali Airlines dib u soo laabato. taasi awgeeda waxa ayaa loo baahan yahay oo loo baahnaan doonaa team ama shaqaalo mustaqbalka ka shaqeeya. sidaan hore u sheegnay, Soomaalideena aad ayay ugu yaryihiin majaalkan aviationka ama duulimaadka iyo hawada barashadeeda iyo cilmigaas. qofkii u baahan faahfaahin dheeraad ama information ama talo ku saabsan duulimaadka waxa ay igala soo xiriiri kartaa social media-hayga. dhammaan waa Pilot Shooter. tan kale waxa ayaan ka dalbanaynaa inaad like, share, subscribe channelkan saartid sida aan mawduucooyin aad ugu heshid ugu soo kordhino. salaam.